fadaa'isha iyo khasaa'ista maalinka jumce waxaa ka mid a walaalayaal in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay diintan islaamku inay dhammaystiran tahay maalin jumce sida xadiidka cumar ibnu alkhataab uu tilmaamayo maalin maalmaha ka mida cumar waxa u yimi nin yahuudiya u yimi markaasaa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin aayatun fii kitaabikum taqra'uunaha low calayna macshara alyahuudi nasalat latakhadnaa dalika alyowma ciida amiirkii mu'miniintow aayad kitaabkiinna ka mid ah ood akhrinaysaan haddaad muslimiinta tihiin haddii ay nagu soo degi lahayd annaga oo yuhuuda waxaannu ka dhigan lahayn maalinkay soo degtay maalin ciida buu yidhi markaasaa cumar wuxuu ku yidhi ninkii yahuudiga ahaa ayu aayatin aayaddaasi waa tee weeyaan markaasaa wuxuu yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina waa aayadda ah maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinna waatmamtu calaykum nicmatii nicmadaydana korkiinna aan ku taam yeelay waradiitu lakum alislaama diina diinta islaamkana aan idinka raali noqday inay diin idiin noqoto ood ku dhaqantaan aayaddaas weeyaan buu yidhi markaasaa cumar radia allaahu canhu waardaah wuxuu ugu jawaabay qad carafnaa dalika alyowm waalmakaana aladii nasalat fiihi cala alnabiyi sala allahu calayhi wasalam wa huwa qaa'imun bicarafata yowma jumca wuxuu yidhi xaqiiqee waan garanaynaa maalinkay aayaddaasi soo degtay iyo booskii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu taagnaa markay soo degaysay waxay soo degtay maalin carafa iyadoo maalin jumca ay tahay nebiguna banka carafo uu taagan yahay ayay aayaddaasi soo degtay xadiidku wuxuu tilmaamayaa ama ku tusinayaa maalinka jumce waa maalinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay diintu inay kaamil tahay oo ay dhammaystiran tahay bal siday culimmadu tilmaamayaan nebigu aayaddaasi markay soo degtay wuxuu sii noolaa muddo aad u kooban oo aan gaadhsiisnayn 3 bilood aan gaadhsiisnayn